dood cilmiyeed ku saabsan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada ku nool wadamada bariga Afrika oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa lagu qabtay magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin iyo aqoon-yahano wariyahayaga Suudaan inooga soo waramay Yuusuf Maxamed Macalin ayaa qodob-reedkan inoo soo diray dood cilmiyeedan ay soo qaban qaabeen isku tag ururka dacwada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa waxa lagu hadlayay taxadiid iyo dhibaatooyinka soo wajaha dhalinyarada bariga Afrika iyadoo ay ka soo qayb galeen doodan qaar ka mid ah mas'uuliyiin kala duwan iyo ardayda wax ka barata dalka Suudaan doodan ay soo jeedinayay Dr. Maxamed Cismaan oo ah madaxa golaha sare ee jaamacadda caalamiga ee Raaf ee xarunteeda tahay dalka Kenya iyo Sheekh Umar Ahmed Sheekh oo ah madaxa hay'adda horumarinta bulshada ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaara dhalinyarada bariga Afrika Dr. Maxamed Cismaan ayaa ka hadlay dhibka uu ku hayo tahriibka dhalinyarada bariga Afrika qaasan dhalinta Soomaaliyeed sigoona ugu digay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan inay tahriibaan dadka waxay rabaan inay tahriibaan oo ay u maraan inay gaaraan Talyaani oo haweeney iyo oday qaawan loo qubaynayo saxaabadooda la dhaqayo oo gaalo ah oo laga yaabo bishii $20 habar gaalo sidee jir iyo oday gaalo inaad u dhaqdo oo marna kaniisadda geysay oo la gashay kaniisadda adoo dhalinyaro oo muslim wallahi waxaa ku ror adoo inta gaalo wallahi adoo gaalo intaa ku ror intaad gaalo dhaqi lahayd oo dumar ah oo rag ah oo kaniisad geyn lahayd adoo intaa ku ror wamaa lilmar'i khayrun fi xayaati إذا ما عدنا من سقط المطاعم. sidoo kale doctorka ayaa ardayda Soomaaliyeed kala dardaarmay inay iska ilaaliyaan qabyaalada waxaana tilmaamay dhibka ugu badan ee xilligan Soomaaliya haysta in ay tahay qabiilka Dr. Maxamed Cismaan ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay ardayda Soomaaliyeed inay yihiin dadkii badbaadin lahaa Soomaaliya waxa loo isticmaalaa islaamka dhaxalka iyo diyada iyo markaysa iyo wixii la mid ah iyo maaragtay loo isticmaalaa buurka iyo waxyaalo la mid ah waxay kartaa reebo baahan laakiin inaad dadka lagu dulmiyo ama lagu dhibaateeyo looma tarag hawshaan reer Suudaan baa siinay Suudaan hadaatiin reer Suudaan waxaa lagu yidhi ilaa 7,000 baa ku dhowyihiin dadka afkaan ku hayo 7,000 ummadda Soomaaliyeed badbaadiya maanta mar boqolaa loo aqsalaayo 7,000 xamlo qaada ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay doodan gudoomiyaha isku taga ururka dacwada Soomaaliyeed ee Suudaan Ustaad Cabdicasiis Nuur Caabi wuxuu aad ugu mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankan sigoona sheegay in culimada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa mar walba u taagan inay wacyigeliyaan dhalinta Soomaaliyeed mar arrimahaasi ka hadlayeen wuxuu yiri culimadeena Sheekh Maxamed Cismaan iyo Sheekh Umar Ahmed runtii waxaa dhihi karaa culimada juhdigoodu markasta waa mid qaacima annaguna waxaan ka nahay wadaadawanaagana insha allahu tacaala juhud culimaduna waa mid qaacima oo inay dacwadda risaalada gaarsiiyaan dadka in markastaba jamhuurkooda meel kasta yimaadaanba inay risaalada gaarsiiyaan waa mid qaacima waddan insha allah hata kum saaca annagu insha allahu tacaala dee anna culimana lihin laakiin waxaan nahay darawaraakana insha allahu tacaala dibna waa badnaa tasaafana waa lena ururka dacwadaha Soomaaliyeed ee Suudaan ayaa mar walba u taagan inuu soo agaasimo doodo waxtar u leh ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan Yuusuf Maxamed Macalin Yuusuf Kashmir warbaahinta qaranka Al Khartoum